haweenka midii ugu qorxaanadii warqadan waxa ku qoran inaan ku aqriyo lama baahnay waxaan ahay hore ee uga dhagsanad waan ogtahay laakiin adiga ma ogid haddaan ammaantaadu istaaga afkayga marnaba inaysan istaagayna uusan isqabanaynin raggu dooqa kama wada sinnaay balse dumarka midaan ka doorto waa adiga waqti walba waxaan jeclahay inaad ila saan qaado saanta meeshaan dhigay aad digto dadka qaar kelmadaha ugu hadashay kaftan iyo ciyaar ay u arkaan dadka qaarna waxay u arkaan iska dhib balse aniga xaggayga ku weyntahay waa iga dhab dhaaranku mar haddada dhinacayga joogin dhimashaan ku dhawaadaa dumarku waad ka duwan tahay runtii qosolka ayaad ku qurux badan tahay khaasatan markaad bishimaha kala qaado mararka qaar waxaan ismoodaa inaan ahay ruux gubanaya misna roob ku yimid oo ololka ka baxaya qabow markaa ma fududayn jecelkaad ugu beertay haddii aan ku fikir lahaa inaan kaa fogaadana naftaana iga saamaxintada bis waxaan sugaa nolosheeda inasaan u iftiimiso dhab ahaan jecelkan kuu qaba aniga dhalinta maanta joogta dhinacooda kama helaysid dhabta waxay taa kuu qeexi ma ii dhiibtay gacantaada mase dhimashaad igu qaybisay wadayaasha dhiigu xanuun aan kula wadaaga wehelkii naftaydaay qalbigaad ku weynto wehelkii naftaydaay qalbigaad ku weynto waqtigii la joogaba adaan kugu warwaraya wehelkii naftaydaay qalbigaad ku weynto